jiro oo cabasho aan ka nahay heer dartood haddaan nahay iyo heer jallas waxaan cabasho ka nahay waxaan kala heli lahaynaa maamulka aad xakunto sida ay degmooyinka meeshii ku kala eg yihiin xaduudaha ay leeyihiin waa kala garan lanahay inaan noo kala sheegtan waan rabnaa shacabkii tarda waa wareeriyey nuur dheere dhinacuu uga dhegan yahay muume eelay dhinacuu uga dhegan yahay dhib kastaa meesha ka dhaco isku halleen badanaa ka jirta guddoomiye maanta waxaan rabaa in nidaamka iyo sharciga in la kala waafajiyo bismillaah deegaanka tardood bulshada ku nool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaa noo yimid oo marti noo ah guddoomiyihii gobolka hiiraan gobolkii uu xukumay ay ka mid tahay degmadan wax badan oo halgan ku soo jiray maanta wuxuu joogaa koonihii hiiraan horta guddoomiyaha nin walba sow yahay wuu og yahay waa guddoomiye xafiis inuu fadhiistaa loogu talagalay ma ku sinaana halganka oo maanta meeshaan xawaadlo uu maraayo ninkii soo curiyo waaye wax kale layskugu imaan waxaa layskugu yimid in la wada tashto laysxog waraysto meesha ay ka dhiman taha laga dhammaystiro gacmaha laysqabsado guddoomiye mar labaad guddoomiye shacabkii degmada tardo iyo degmada jallasi iyo deegaanka tardo si hagar la'aana oo qalbi fiyow oo caafimaad qaba ee sidii walaal looga bartaa ayay hadday tahay dagaalkana u galeen gabdhaha kama harin in kastoo aan xaxamanno oo aan dhahno kuwa shabaab ka tagaa degma aad jooga tuulada in kastoo aan dhahno laakiin boqolkiiba boqol dagaalka way garab istaageen midda baraxa keenaysa midda badarka karinaysa guddoomiye halgankii aad soo waday guraanadkiisii kaalin weyn oo mugle oo dhiigle oo nafle oo maalle oo dadaalle ay ku baxsheen deegaanka tardood mudana guddoomiye degmada kuugu xaggaysa oo galmudug xigta ayaa dagaalka ka soo bilowday maantana waxaa maraysaa degmadii kuugu xaggaysay ee gobolka shabeellada dhexe diriskale ahayd intaas gobolkii aad xakunto aad soo maraysay waxaa la yidhi ragas ammaanay waa ri isluugta tuulooyinka aad soo martay ama degmooyinka aad soo martay waxaan jeclahay kaalin walba qof walba weelka oo wax ku beegta in wax lagu siiyo lagu ammaano lagu taageero tuulooyin badan aad soo martayna qof kaaga soo bixin laga yaabe kuwan ka fiican inay jiraan laga yaabe waa is ammaanaynaa haddaan reer jallasi nahay waa is ammaanaynaa waxaan filaa guddoomiyahooda iyo shacabkiisa inayna kala harin dagaalkooda galeen guddoomiye waxaa ka jiro oo cabasho aan ka nahay heer dartood haddaan nahay iyo heer jallas waxaan cabasho ka nahay waxaan kala heli lahaynaa maamulka aad xakunto sida ay degmooyinka meeshii ku kala eg yihiin xaduudaha ay leeyihiin waa kala garan lanahay inaan noo kala sheegtan waan rabnaa shacabkii tarda waa wareeriyey
nuur dheere dhinacu uga dhegan yahay muume eelay dhinacu uga dhegan yahay dhib kastaa meesha ka dhaco isku halleen badanaa ka jirta guddoomiye maanta waxaan rabaa in nidaamka iyo sharciga in la kala waafajiyo anoo afka degmada Jallaqsi ee deegaanka Tardood ku hadlaya waxaan cabasho ka nahay maamulkii ama garab dadkeena soo garab istaagay in macnaha wax nala wanaajiyaan in wax lagu dheeraayo haddaan ninkii wax ku dheeraayo aniga aan ahay inay qabataan raba ee degmada ayna ahayn Tardo haddii dadka ku dheeraayo oo hortaagan oo dhibaatada ku haayo waa shacab masaakiin oo 12 sano la haysto maalinka aan nimid iyo maanta inta ka dhaxaysana caawayna mayna huyan maalinna mayna seex intaasna waxay u taagnaa ayagoo intaasoo juhdi bixinaya inaan ku dheedheelno maskaxdooda meeshii aan maskaxdooda ka wanaajinayn waa wax noo catul waayay guddoomiye ku soo dhawaaw deegaankaagii degmadaadii xad ku soo dhawaaw dadkaagii qalbiga furan ku soo dhawaaw niyad saafiya ku soo jawaaw galkaceel ku soo dhawaaw walaalnimo ku soo dhawaaw guddoomiye waa mahadsan tahay maadaama maanta aadna tiri deegaanka dadka ku nool bannaanka keen wax badana waa nagu jiraan waxaan rabaa inay ka hadlaan dadka deegaanka ku soo dhawaada odayaasha deegaanka